ورحمة الله وبركاته رمضان كريم waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan dalka Jarmalka waxa loo yaqaan Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Jarmalka waxa uu ku yaala qaaradda Yurub waxa uu xuduud la wadaagaa dalalka Denmark, Poland, Jamhuuriyadda Czech, Austria, France, Luxembourg, Belgium iyo Switzerland dalkan aan ka hadlayo ee Jarmalka waxa uu soo maray xaalado iyo maamulo kala duwan si weyn ugu lug lahaa dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida waxa uu dhowr mar noqday Jarmalku laba wadan waxaana ugu dambeysay markuu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida Jarmalku waxa uu qaybsamay laba wadan oo loo yaqaan Jarmalka Bari iyo Jarmalka Galbeed bishii Oktoobar 3 sanadkii 1990 ay dib u midoobeen labadii Jarmal waxaana la aasaasay dawladda hadda jirta hogaamiye la xasuusta ayaa dalkan soo maray waxaana kamid ah hogaamiye la oran jiray Adolf Hitler caasimada dalka Jarmalka waxa la yiraahdaa Berlin sidoo kalena waa magaalada ugu weyn dalkaasi calanka dalka Jarmalku waxa uu ka kooban yahay saddex midab oo kala ah madow casaan iyo huruud luqadda dalkaasi laga hadlo waa luqadda af Jarmal tirada dadka Jarmalka waxa lagu qiyaasaa ilaa 280 milyan oo qof lacagta dalkaasi laga isticmaalana waa lacagta Yuurada dalkan waxa loo aqoonsan yahay dalka Yurub ku dadka badan iyo dalka labaad ee ugu qaxootiga badan la caalamka sidoo kale waa dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka dalka shanaad ee ugu warshadaha badan iyo dalka saddexaad ee waxa uu dibadda u dhoofiyo kalena soo taga waxa uu sidoo kale xubin ka yahay qaramada midoobay ururka midowga Yurub gaashaanbuurta NATO ururada dhaqaalaha ku horumaray G7 iyo G8 iyo ururo kale oo caalami ah dalkan oo ay ka jirto dowlad federaal ah oo madaxdooda la soo doorto waxa qofka ugu sareeya la yiraahdaa chancellor hadda waxa xilkaasi ku guuleysatay markii afraad oo isxigta haweeneyda la yiraahdo Angela Merkel oo xilkan haysay tan iyo sanadii 2005 waxay dhalatay bishii July sanadkii 1954 dalkan waxa uu sidoo kale kamid yahay toddobada dal ee ugu dalxiis tegista badan caalamka oo dhan waxaana lagu qiyaasay sanadkii 2012 dalkaasi meelaha loo dalxiis tagay in ay booqdeen dad gaadhaya 407 milyan oo ruux Jarmalku waxa uu kamid yahay dalalka Yurub ee soo dhaweeyay dadka magangalya doonka waxaana sanadkii 2016 dalkaasi iska dhiibay qiyaastii 10 milyan oo qof dadka soo galootiga ah badankooda waxa la dejiyay xariyo loo sameeyo dhulka miyiga ah ee galbeedka wadankaasi xagga diinaha haddii aan eegno dawladda Jarmalku waxay aaminsan tahay in dadka dalkaasi ugu badan masiixiyiin yihiin islaamkuna waa diinta labaad ee dalkaasi ugu badan warbixin soo baxday sanadkii 2011 ayaa sheegaysa in ku dhawaad 4 milyan oo qof oo muslimiin ay dalkaasi ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dalkaasi jooga waa Sunni waxay badankooda u dhasheen dalka Turkiga waxaana dadka muslimiinta ah bulshada dalkaasi ka yihiin 5%. dalka Jarmalka waxa ku yaala masjidka Cologne oo loo aqoonsan yahay inuu kamid yahay masaajidda Yurub oo dhan ugu weyn masjidkan oo ay dhiseen hay'ado Islaami ah waxa uu qaadaa ilaa 4,000 oo qof laga soo bilaabo tan iyo sanadkii 1970 ayaa la aaminsan yahay in islaamku ku xoogeysanayay wadanka Jarmalku waxa uu kamid yahay dalalka ugu badan ee warbaahin ka shaqeyso waxaana dalka ku yaala 38 milyan oo TV iyo 500 oo idaacadood inkastoo sidoo uu dhaqanku u kala duwan yahay uu haddana u kala duwan yahay raashinka dalkaasi laga cuno badanaa wadankaasi waxa laga aad looga isticmaalaa roodhida xagga ciyaaraha dalkan aad waxa loo xiiseeyaa kubadda cagta waxayna leeyihiin horyaal dunida ka caan ah oo la yiraahdo Bundesliga xulka kubadda cagta Jarmalku waxa ay ku guuleysteen koobka adduunka 4 jeer oo kala ah 1954 1977 1990 iyo 2014 xulka qaranka ee gabdhaha dalkaasna waa xulka ugu koobabka badan waxay koobka adduunka ku guuleysteen 2 jeer iyo 12 jeer oo ka Yurub dalkan ayaa sidoo kale 2 jeer martigeliyay ciyaaraha adduunka halka kuwa Yurubna lagu qabtay hal mar VFX footage VFX footage